maanta waxay taagan tahay sidee dalka ku badbaadinaa markii aan dalku badbaadino aan dhihi karnaa qaabkee horumar ugu samaynaa qaabkee baa horumar u samaynaa dawladdan aan dhisanayna noocayna qane ma doorashay ku imaanay nooc kale ku imaanay maalinteedu way laakiin maanta see u badbaadina qarankii taaganta marka waxaan leenahay xildhibaanu inta xildhibaan ka naqay hadii dalka la qabsado waxaan leenahay dalka badbaadiisa in loo midoobo xukuumaddana waxaan leeyahay madaxda qaranka waliba ugu baaqaya inay dhammaan ugu baaqdo sidaan ugu baaqayno dadka Soomaaliyeed haddii aad rajo ka qabtay in dawladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalkan ay horumar gaarsiiso haddaad islahayd xasan sheekh baa dalka ka saaraya nidaamkii qabiiliga ahaa dimuqraadiyada loo dhaqaaqaya ogow dalku badbaado rabaa ka warraba dalkii ayaaba badbaado raba halis bay ku jirtaa maanta Soomaaliya qatar abni mid boob toos ah oo dhulkeennii iyo baddeenii annagoo soo taagan la iibinayo halista uu dalka u horseeday xasan sheekh maxamuud baan wax badan ka ogaan doonaa qayladhaanta culamaa u diinka ku baaqaya dalka hala badbaadiyo ayadana doorka si gaar ah ayaan u saari doonaa dagaalkii shabaab ee nalagugu sheekeeyey in lagu dhammaystiri doono muddo kooban ka warrama 24 saac ee lasoo dhaafay shabaabku waxay ka dagaalamayaan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose labada gobol ee muqdisho ku dhagan labada dhinac baa muqdisho laga soo galay ciidamadii dawladda jahawareer waa haysta hub iyo waliba dhaqaale wax alle iyo waxay dawladdu haysay waxay isugu geysay dagaalada labada shabeellooyin ilaa haddana wax ka soo naxsacan haba yaraatee ma jirto qatarta taagan oo aan la iska indhatiri karin barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa intuu barnaamijku socdo xaalada xasaasi ah oo taagan ayaan isla eegi doonaa kusoo dhawaada channelka YouTube haddii aad ku cusubtahay channelka waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saarto haddaadan ku cusbayn ood hore noola joogtay mahadsanid daawade haddaa islahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud baa Soomaaliya horumar gaarsiinaya ama aad islahayd wuxuu ka bixi doonaa nidaamka qabiiliga ah oo guul siyaasadeed iyo mid amni ayaa la gaari doonaa nasiib darraa dhacday dalkii maanta badbaado rabaa qatar ayuu ku jiraa culamaa u diinkii baa fariimo adag soo diraya sheekh Somo ayaa ka mid ah culimada waliba ugu caansan buu ka mid yahay wuxuuna shaaca ka qaaday in dalkan niyadii doorasho iyo hiigsigii la waday ay tahay mid aan waxba ka jirin dalkiina uu u baahan yahay in laga badbaadiyo qawaariij iyo cadow kale oo maanta laga iibinayo baddeena iyo dhulkeena bal marka koowaad fariinta sheekh Somo ayaan dhuuxaynaa maanta waxay taagan tahay sidee dalka ku badbaadinaa markii aan dalku badbaadino aan dhihi karnaa qaabkee horumar ugu samaynaa qaabkee baa horumar u samaynaa dawladdan aan dhisanayna noocayna qane ma doorashay ku imaanay nooc kale ku imaanay maalinteedu way laakiin maanta see u badbaadina qarankii taaganta marka waxaan leenahay xildhibaanu inta xildhibaan ka naqay hadii dalka la qabsado waxaan leenahay dalka badbaadiisa in loo midoobo xukuumaddana waxaan leeyahay madaxda qaranka waliba ugu baaqaya inay dhammaan ugu baaqdo sidaan ugu baaqayno dadka Soomaaliyeed oo dhan muxaafid iyo mucaaradba idoon loo eegaynin in loo midoobo wixii alla wixii la isku haystana meel la iska dhigo dalka difaaciisa waxa la isku haysto dhan wax yar waaye waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed haddaba muxuu yahay qatarta uu dalkeena ku jiro qawaariij muqdisho halis ayuu ku jirtaa in sanadkan ay shabaabku weeraro ka qaadaan waliba garbasiban labada shabeellooyin wax la filayay maaha ciidamada dawladda iyo hanti ay dawladdu waxay haysay waxay isugu geysay shabeellada dhexe ilaa ku dhawaad 15 maalmood shabeellada dhexe ka dagaalamaysa dawladda wax ay soo kordhisay oo ilaahay abuurto malaha tuulo kasta iyo degmo kastaba inay dab ku qabato ay baabi'iso ay gubto wax aan ahayn oo ay dawladdu hayso malaha ruunadgooda ugu dambeysay 24 saac ugu dambeeyay deegaankaasi kooxda shabaab ayaa gacanta ku haysay diyaaradihii Itoobiya lagu fasaxay dhulka la dhigay magaaladii xoolo dad shacaba shabaab lama kala reebin awoodda dawladdu waxay ku soo koobmatay in degmada ama tuulada ay shabaabku haystaan ay isla gubaan dadka ku nool iyo shabaab ilaa ay haddana guul ay dawladdu ka gaartay ma jirto gobolka shabeellada dhexe
culayskaasoo taagan ayay shabaabku waxa ay bilaabeen inay weerar kale ka soo qaadaan gobolka shabeellada hoose maamul goboleedka koonfur galbeed wixii ka dhacay 12 saac ilaa 24 saac ugu dambeeyay markhaatiyaan ka ahayd maxaa sababay marka in shabaab 3 sano kadib uu soo yeesho awood maxaa keenay markii hore dagaalka lala galay ayaa laga fiirsan oo bilaa kaarto loo galay hayacdo dowladii oo dhanba jabhad ahaan bay u gashay dagaalkan hadduusan dagaalku taati kala hay qorshe fog iyo mid dhowna una lahayn la tashi fara badanna aan la samayn dagaalkaasi waa dhicisoobaya in laga adkaado shabaab aan jecelahay in ciidamada qaranka guuleystaan aan jecelahay laakiin dagaal aan kaarto lahayn fashilkiisu ma dheera dagaalku marba hadduusan kaarto lahayn oo qorshe fog iyo mid dhow midnaba una lahayn ma fududa inuu dagaalkaasi si sahlan lagu guuleysto waana sababta keentay argagixiso 3 sano kadib inay maanta ka dagaalamayso labada shabeelle lama rabo igu sawir gudoomiyaha maxkamadda sare ciidanka qalabka sida shuute ayaa tagay goobaha lagu dagaalamayo hebel oo xildhibaana ayaa tagay goobtii lagu dagaalamayay saraakiila tagtay goobtii lagu dagaalamayay bal fiiri maanta dowladda iyo warbaahinta qaranka waxay leeyihiin furimaha dagaalka bal ariga furimaha dagaalka ayaa lagu leeyahay meeshaas waxaa ka cad in dowladda ay furimo badan ay ku furan yihiin shabaabkii baa qorsheynaya dagaalka siduu u dhacayo shabaabkii baa jideynaya waqtiga dagaalka u dhacayo dowladdu ilaa hadda difaacay ku jirtaa mar alla iyo markii meel laga soo weerarana inay wada gubto mooyaane tabar kale oo ay dowladdu ku geli karto deegaanada ma jiro diyaaradihii Itoobiya cidna aan u dirnahayn ayaa gobolkii shabeellada dhexe lagu baabi'iyay shacab xoolo shabaab wax la dhaafayo haba yaraatay malaha awood kale dowladdu malaha maxay tahay marka waxaas oo dhan waa kaarta la'aan dagaal aan qorshe lahayn dagaal aan tactica dambe lahayn dagaal aan laga fikirin meeshaas ayuu dalka dhigaya dhinaca kale Itoobiya waxa ay dalbatay oo ciidamadeeda badda waxa tababar u furay hadda Ruushka dowladda Ruushka ayaa tababaraysa ciidamo bad ay diyaarsanaysaa badda loo diyaarsanayo waa badii uu Xasan Sheekh Maxamuud diiday lagu wareejiyay Itoobiya dhinacna badeedii baa laga dhacay dhinac wax alla iyo wixii dhulkeena yeelay ayaa la boobaya dhinacna argagixisaan ugu soo socota madaxweynaha xal uu hayo haba yaraatay malaha wax uu xilligan Xasan Sheekh uu dal ku badbaadi karo oo maanta ku samata bixi karo dowladnimada Soomaaliya ma jirto rajadii aynu horu socod ka lahayn maanta waxaan ka dagaalamaynaa shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose haddaad aaminsanayd waxaad arki doontaa dhulkii oo wada nabada oo shabaabkii laga xoreeyay maanta shabaab 2025 Xasan Sheekh ay u dhimantahay hal sano shabaabku waxay ka dagaalamayaan labada shabeelle meel loo dhaqaaqay iyo horumar la gaaray haba yaraatay malaha marka culimada diinku way qayla dhaaminayaan qof kastoo wax garada maanta wuxuu leeyahay dalka hala badbaadiyo waxaad ka hadlaysaan idinku mucaarad iyo muxaafade wallahi Xasan Sheekh anagoo soo taagan ayuu caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho wuxuu rabaa inuu ka dhigo argagixisada ku wareejiyo kadibna uu diyaarad ka qaato magaalada Muqdisho diyaarad gaara uu madaxweynuhu leeyahay ayaa baakiman garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho runta aan isku sheegno odagu xaaladda day xumaato diyaaraddaas uu qaadanaya dadka dhibaatada argagixisada dhibka kala kulmi doono Xasan Sheekh hadda iska qabto balaayo iyo rafaad dalkan maalintuu yimid marqaatiyaan ka nahay war qabiilka inta duubno aan meel iska dhigno badbaado dalkii rabaa yaa laga badbaadinaya adowga qawaariista iyo ninka maanta noo loogayo waxba yaanan beel lagu sheegin si kasta oo lagu yiraahdo dagaalka shabaab dib loo bilaabaya ogow 3 sano meeshuu ka bilowday ayuu hadda maraya mar labaad dagaal hadii la qaadana meel fog ma gaarayo warkaasna waa adiga wixii ku soo kordha xaaladda qatarta dalka uu ku jiro barnaamijyada kale ayaan kugu soo gudbin doonaa nabadgelyo